السلام عليكم دمانتين وسلامتين ما أنت برنامج شينا وحن كسوق قادنا وحا كسعودة مقالة بورما مظاهرات كسعودة مقالة بورما يسلو كلام ماشا وحيالوين كدعان وحيالا هورينيا وحيالا كاني وحاسن دون يكدب الجيو waxaan sidoo kale idin tusayaa maamulka gobolka Awdal ama reer Boorama oo hadlay oo mowqifkooda cadeeyay sidoo kale caruurta yaryar ee dadkaasna meel ku tiiriyay waxay ka yiraahdeen waynu eegi doonaa horta bal waxaynu ku horeyn doonaa muuqaal laga duubay isku soo bixi waxaan ka codsanay muuqaalka la garee share garee channelkana subscribe ta saar si meel fog insha Allah inuu gaaro waayahay balansada daawano muuqaalkan saaka laga soo duubay magaalada Boorama muuqaalka wax yar waan yar qiimeynaa bal adiga muuqaalka u fiirsada kuma jiro aniga habla iska dhaaf kuma jiro hal qof oo 15 jira dadka halka mudaharaadaya kuma jiro hal qof oo da'diisu gaarsiisan 15 jir bal muuqaalka aadin ku yar ariyo waa kale bal muuqaalka ilaaga waa wada caruur yar yar oo guryahoodii laga soo kiciyay dhammaantood waa caruur yar yar oo hooyadood aabahoodna u shaqo tagay hooyadoodna adeegii doontay oo kadibna waa la soo kiciyo wax lagu soo akhriyay waxa jirta in markii dambe loo soo dhiibay calanka Soomaaliya horta wax yar ayaan ka oranayaa horta da ahaan waynu aragnaa caruurta mabda ahaanna mabay gaarin baan oran karnaa waqti ay kala doortaan oo ay doorasho qalib galaan oo qalbigoodu wax kala doortay adduunka wax ka arkaan may gaarin calanka Soomaaliya ba inaan wax yar ka yar idhaahdan dooniya horta Soomaaliya waa dad sharaf leh shakhsiyan dad badan oo Soomaaliya ba ma garanaysaa meeshan ku xidhan ta reality wal ogyahay magaalada Boorama inay tahay magaalada gobol kamid ah gobolka Awdal inay tahay gobol kamid ah Soomaaliland way ogyihiin inaan calan yar oo la qaato ma ahe hadii adduunyadu halka isugu timaado in ay Soomaaliland ka bixi karin way ogyihiin dadka waxaan sameeynayaa kaliya ta waxay u gol leeyihiin in caruurta yar yar la laayo in caruurta yar yar xabaduhu ku dhacaan laakiin waxaan ka codsan lahaa arinkaas dadka arinka haya ee booliska magaalada Boorama waxba inta yaacayaan yaa la taaban qof kasta ha laga daba tago gurigiisa hal qof oo nabad gala uu jirin ugu yaraan qofka ugu yar ee halkaas marayana 5 sano oo jeela ki ugu yar ha lagu xiro waa haday ugu yaraato qofka ay ugu yaraato ee lagu arko arinka waxa weeye sidoo kale arinka sirdoonka magaalada gobolka Awdal waxaan oran lahaa dadkan calanka haya waxa weeye xuduud meelaha laga soo geeynayo xuduudaha meelaha laga keenayo abti ogaada le sirdoon waa inuu yeeshaa indho quraanjo maanta sirdoon waa nahay calanka Soomaaliya halka yaalana ma ogi waxa weeye Somaliland meel tagtana waan doonayaa abtiyaal wax isqabanaya ma aha sidoo kale iyana wax isqabanaya ma aha dadka odayga maanta dadkiisa arkaya oo qaabka u dhaqmaya oo indhaha isa sii qabanaya ma aha maaragtay maanta waxa ka dambeeyo waxan in xabad shafka la iskala dhaco suwaynta bal maamulka Boorama oo arinkan si aad uga hadlay bal isla daawano arinka mudaharaadka waxa ay ka yiraahdeen bal isku eegno waa koone magaalada Boorama ka bilaabmay mudaharaad iyagoo xarumihii dawladana dhagax tuur la hor yimid dhamaan saldhigii dadka laakiin muraad kala leh oo meel ay madaxa kala soo baxaan lahaa ayaa dadkii la qaadaya
gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbare iyo maayirka magaalada Boorama Maxamed Axmed Warsame ayaa ka hadlay mudaharaad saaka ka bilaabmay gudaha magaalada Boorama. Mas'uuliyiintan ayaa sheegay in mudaharaadayaashaasi ay rabshado la hortageen xarumaha laamaha dawladda ee gobolka Awdal. maanta tahay 8 bishii shanaad 2023 waxa magaalada Boorama ka bilaabmay mudaharaad iyo shaqaaqo iyo dhibaatooyin ay wadaan dhalinyaro iyo dumar iyo caruur wax magarata kuwaasi oo dhibaatooyin fara badan u geystay inay shidaan taayiro iyo markaa dab iyagoo xarumihii dawladana dhagax tuur la hor yimid dhammaan saldhigii xafiiskii gobolka xafiiskii degmada dhammaan xarumaha dawladda oo dhan bay u fiirso caruurta yaryar waxa lagu oranayaa gala jeelka meesha jeelka gala waxa loogu soo sheekeynaya marka hore adeeradin baa askara adeeradin baa halka jooga laakiin caruurta yaryar marka lagu yiraahdo adeerkii baa halka jooga muddo ku mudaharaada run bay moodiyaan markaas shaf xabad laga gelinaya deetana markaas dadkaasi waxyaalaha isticmaalaan anigu horta booliskaas gobolka Awdal aad iyo aad ayaan dhaliilaya waayo arrinkan aad iyo aad u soo socday marka haddii aad dhugmiyo weydo aad waxba garan weydo waa mid subxaanallah saadarteed dadkaasi waxaynu ognahay in dilkii ka dhacay Looyacado askarigii geystay shalay maxkamaddii darajada koowaad ay soo saartay xukunkii dilka toogashada ahaa iyadoo maxkamaddii darajada labaadna la sugayeen maanta ay timaado oo ay soo socoto waxa ka hor dhacay dadkaasi iyaga oo aan xiriir la lahayn oo aan ahayn dadkii ehelka u ahaa ee hawshaasi ku dhacday waxa ku dhex jira dad badan oo aan ujeedooyin kala leh oo la markaa meel ay ka soo galaan arrinka kuwaasi baa fulinaya waxyaabahani mana khusayso hawsha dadkaasi waxaan u sheegaynaa reeb point muhiim ka hadlay dadkan waxba iskuma aha labadii askari isdilay kii la dilay iyo kii wax la dilay kii wax dilay iyo kii la dilay waxba kama oga halka ay wax marayaan laakiin waxa ku shaqaysanaya adeero dad idin la mid ah oo laga yaabo inaan Boorama joogin waxaana ceeba adiga magaalada Boorama jooga in lagaaga saameyn bato magaalada Boorama markaas arrinkaas insha Allah waxaan rajaynayaa in la xaliyo soo kale dhalinyarta yar ee reer Boorama ku nool ee hadda muuqaalkiga daawanaya waxaan la adeero intaanad isku kaajin oo aan sare jooga ku kaajin guriga hooyada joog wax baro